السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوديال ميل والبا oo joogtaan qodobada aad wararkeena aroonimo ku maqli doontaan waxa kamida dagaaladii xooganaya u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF oo halkoodii ka sii socda sidoo kale ciidamadii abid ugu badnaa oo ka tirsan huwanta dawladda federaalka ay hogaaminayso ayaa waxa isku dhibeen kooxda TPLF dagaaladii xooganaya u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta ayaa waxa la soo sheegay in wali dhufayska iskugu jiro wax hal ahana aan laga gaadhin sidoo kale xafiiska warfaafinta dawladda Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in uu raali gelin ka bixiyo TV-ga lagu magacaabo Fana ee ku hadla afka dawladda Itoobiya hadalkii ka soo yeedhay habeennimadii Jimcadaha ee ku saabsanaa in ciidanka dawladda Soomaalida ay kala labtaan dagaalka hadii kale la ruushayni doono daawadayaal wararkeena waxaan ku eegaynaa qodobadaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay bisha 8 2020 haddaynu u gudagalo wararkeeni oo faahfaahsan dagaaladii xooganaya u dhaxeeyay ciidamada federaalka Itoobiya iyo huwanta ay hogaaminayaan kooxda TPLF ay kula jireen gobolka Axmaarada iyo Canfarta ayaa waxa la soo sheegay maalinba maalinka ka dambaysa inuu kor u sii kacay iyadoo la soo sheegay kooxda TPLF shalay deegaano ballaaran inay qabsatay hase yeeshee dawladda federaalka ayaa moodaa culayska kooxda TPLF ka imanaya inay iska badhagatirayso mana moodid baa dawladda Addis Ababa fadhida in ay dagaal kula jirto kooxda TPLF sidoo kale dawladda Addis Ababa joogta waddanka waxay ka gadaysaa in uu dagaalba waddanka ka jirin maxaa yeelay waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya qaabka ugu dhaqmaya ee iska baashaalka damaashaadka inuu waddanka dagaal ka jirin kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegtay huwantii shalay soo weerartay inay gabi ahaanba cagta marisay ay ciidamo aad u badan ka qabatay ayna dagaalkana sii wadi doonto sidoo kale kooxda TPLF waraaq ay shalay qaramada midoobay u qortay ayaa u qoraa sida tan annagu waxaan nahay qoomiyad Tigray ah waxaana badbaadinaynaa qoomiyadda Tigrayga maxaa yeelay qoomiyadda Tigrayga dhulkooda korontadii waa laga jaray biyihii waa laga jaray caafimaadkii waa laga jaray waxayna ku dala jireen kooxda Addis Ababa fadhida inay qoomiyadda Tigrayga gabi ahaanba ay saaxadda iyo ka saaran nolosha bini'aadnimada sidoo kale waxaanu badbaadinaynaa shacabka Tigrayga ee ku sugan qaaradan Afrika kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay dagaalka sii wadi doonto inta ay dawladdu xal kala imanayso ama dadkan Tigrayga la badbaadinayo dawladda kooxdan TPLF dagaalka kula jirta ay dawladdu waxay u artaa wax kasta oo caqabad ah oo gobolka Tigrayga ka dhaca inay mas'uul ka yihiin kooxda TPLF dawladdu wax waajibaad ah ma iska saarin gobolkan Tigrayga maxaa yeelay kooxda TPLF ayaa dawladda ka hortaagan dagaal kula jirta sidoo kale kooxda TPLF waxay ka dagaalamaysaa dhul aan dhulkoodii ahayn xal lama rabaan hase yeeshee TPLF shalay hadalkeeda waxa laga dheehanayay inay awoodooda hoos u dhacday ayna wax xal oo kale haynin hatta hadalkooda waxa ku dhex jiray inay xal ogol yihiin nooc kasta oo dalka Itoobiya lagu xalinayana ay ogol yihiin miiska wada hadalkana ay diyaar u yihiin sidoo kale ciidamadii abid ugu badnaa ayaa waxay ka soo muuqdeen warbaahinta miidiyaha ciidamadii abid ugu badnaa oo ka tirsan maleeshiyaadkii la ururiyay iyo ciidamadii federaalka ee la dagaalamay kooxda TPLF ayaa waxa la sheegay ugu yaraan 1,000 askari inay isu dhiibeen kooxda TPLF ciidamadan ayaa waxay TPLF markay soo bandhigaysay waxa ay sheegtay in ay dagaalba la galin ciidanka TPLF hase yeeshee ayagoo qoryahoodii wata ay yimaadeen ciidamadaas waxa ka dhex muuqday sawirro badan oo aad moodid inay dad Soomaali ah yihiin hase yeeshee aan luuqadooda ku hadlaynin TPLF ayaa baryahanba waxay soo bandhigaysay ciidamo badan oo leedahay way isku soo kana dhiban hase yeeshee dadka qaar ayaa waxay ku eedeynayaan TPLF in ay tahay propagandada dagaalka dadka ayaa waxay leeyihiin ciidamadan waa ciidamada TPLF oo la soo bandhigay oo leeyihiin niyad jabi ay ku ridayaan militariga iyo huwanta la dagaalamaysa iyo shacabka dalka Itoobiya oo siyaasadda si badan looga sii jeedinayo propagandada TPLF ayaa waxa la sheegay inay ka badan tahay tan dawladda federaalka maxaa yeelay TPLF markasta waxay leedahay ciidamadii dagaalka soo qaaday hubka bayna noo keenay waxayna niyad jabinaysaa dawladda iyo shacabka Itoobiya
dagaalka lagula jiro TPLF waxaad moodaa weli wax xal ah inaan loo helin hase yeeshee dowladda federaalka markasta is-abaabul waxay ku jirtaa ay kaga hortagayso kooxda TPLF mana moodin labada dhinac midna in u tanaasul wada hase yeeshee TPLF ayaad moodaa hadda in ay sii jilcayso dagaalka TPLF lagula jiro wuu daba dheeraaday ugu yaraan 9 bilood buu galay hase yeeshee welina wax xal ah lama hayo sidoo kale dagaaladii xooggan ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta ayaa halkoodii ka sii socda dagaaladan oo qaatay 3 maalin maalintii afraadna hadda sii galayo ayaa waxaad moodaa maalinba maalinka ka dambeysay dagaalkaasi inay dhimashadiisii badanayso sidoo kale waxaa la soo sheegay xeeladaha dagaalka iyo nooca dagaalka istiraatiijiyada loo dagaalamayo in ay awood badan leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay takhasus dagaal leeyihiin maxay qolada Canfarta waxay soo hubayeen maleeshiyad iyo caruur iyo dad aan weligoodba tababarka galay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalidana markasta oo dagaalkaasi qorxa guula badan ay gaarayaan geesiyaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dagaalkani ku guuleystay oo cagta mariya Canfarta gabi ahaanba ilaa ay Canfartu cabaadkeeda u gaadhay magaalada Addis Ababa Canfarta ayaa cabasho badan waxay geysay dalka Itoobiya caasimadda laga maamulay Addis Ababa sidoo kale dowladda federaalka ayaa TV-ga Fana ayaa habeen hore wuxuu hadlay si jees u leeyahay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida gabi ahaanba waan rushaynaynaa hadday ka bixi waayaan dhulka dagaalku ka socdo hase yeeshee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaad moodaa sanadkan in ay diyaarsan tahay ayna ka go'an tahay dhulka Soomaalida inay xoreyso waxayna u baahan tahay dowladdu taageero weyn oo la garab istaaga si dadkaasi loo difaaco ciidamada ku sugan dowlad deegaanka ee gobolka City ku sugan ayaa si fiican hawshooda u wata Canfartina dhulka waa laga saaray ilaa Canfartu dagaal yar oo goosgoosa ayay soo qaadaysaa sidoo kale xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ugu baaqay TV-ga Fana ee laga leeyahay dalka Itoobiya kuna hadla afka dowladda Itoobiya in uu raali gelin buuxda ka bixiyo hadalkii ka soo yeedhay habeen hore TV-ga ayaa waxa uu yiri ayadoo la sheegay waraaq ku xardhan meesha inuu taliyaha militariga guud ee dalka Itoobiya inuu yahay ciidamada liyu booliska Soomaalida dowlad deegaanka ee dagaalka ka wada gobolka City in ay ka baxaan dhulka lagu dagaalamayo hadda ay bixi waayaan sida ugu dhaqsaha badan in hawshanada u gudadoon oo cir iyo dhulba ka weerari doono hadalka TV-ga ayaa waxa aad moodaysay inuu gaf weyn ku ahaa shacabka Soomaaliyeed maxay yeelay shacabka Soomaaliyeed waa shacab Itoobiyaanibadana way ku dhintaan difaaca dalka ee qaybta sare ee laga dagaalamay Tigrayna kow ayay ka yihiin hase yeeshee hadalka dowladda federaalka ayaa moodaa inuu ahayn hadal dhaxdhaxaad ah oo yahay hadal jees oo dadka Soomaaliyeed markasta la dulminayo dadka Soomaaliyeedna ama loo aqoonsaneen Itoobiyaan sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay dagaalka sii wadi doonaan markastana ay shacabka Soomaaliyeed iyo dhulkoodana difaaci doonaan ana loo joojin doonin dalka Itoobiya danta uu leeyahay hadalada jeeska shacabka Soomaaliyeed lagu bahdilayo daawadayaal waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe waxaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh